بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada korsadeenii Google Ads. Cashirkan waa cashirkii labaad. Cashirkii koowaad waxaan kusoo qaadanay horudhaca ama dulmar. Kan mid ayaynu u faahfaahin doonaa insha Allah. Cashiradan haddii ay kusoo gaarayaan ilaa iyo 3 cashir waa introduction. Kan afraad ayaynu geli doonaa practical. Sababta sida aynu u sameynayno waxa waaye waxaan rabaa inaad fahanto suuqa si guud, concept guud adigoo haystana aad gasho Google Ads. maxaa yeelay waxyaabaha inta badan soo noqnoqonaya ayaa xoogga la saaraa si ardayga hadhowtii ay ugu fudaato inuu wixii fahmi karo. Qaybta koowaad, Search Ads. Waa maxay Search Ads? Search Ads-ka ama suuqgeynta internetka ee xayeysiimaha raadinta waa hab lagu xiro xayeysiisyada khadka tooska ah. Markaad xayeysiintada khadka tooska aad saarato, waxay kuu fududeynaysaa in macaamiil fara badan aad hesho. Search-gan macna waa inta badan dadka waxyaabaha ay isticmaalaan waayo bogagga internetka ee muujinayo natiijooyinka weydiimaha mishiinka raadinta. Khadkaad gashay xayeysiin aadan dalbanin ayaad ka soo horbaxday. Xayeysiintaas waxa waayo Search Ads. waa xayeysiin lagu keenay raadi la yiri macaamiil raadi ayaa xayeysiintaas maalin ay ku imaatay. intaas macna ayaa sidoo kale wuxuu leeyahay adeega xayeysiisyada matoorka raadinta ama waxyaabaha inta badan search-ga la raadiyo ee isku midka ah. Xayeysiisyada sidoo kale waxaa lagu xiri karaa bogagga internetka dhammaantood. Xayeysiintan waa lagu xiri karaa sidoo kale iyo waxyaabaha kale ee la daabacay ama waxyaabaha daabacaadda ku baxayo ama waxyaabaha la arki karo macna. Search Ads-ka ilaa 3 qaybood ayaa loo qaybiyaa. Search Ads-ka ilaa 3 qaybood ayaa loo qaybiyaa. Qaybta koowaad Dynamic Search ayaa la dhahaa. Qaybta labaad waxaa la dhahaa Online Calling. Qaybta saddexaadna Mobile App Installation. 3 qayb macallin waynu baran doonaa. 3 qaybood maxaa laga wadaa? Dynamic Search xayeysiisyada raadinta fircoon Allah. Dynamic Search waxaa la xayeysiisyada raadinta fircoon. Waa habka ugu fudud ee lagu heli karo macaamiil Google ee raadinaya ama raadinaysa si sax ah waxa aad bixiso. Macaamilka sida ugu fudud ee uu ka heli karo alaabtaada waxa waayo inaad adeegsato Dynamic Search. Waxay dhahaan ku habboon xayeysiisyada leh horumarka wanaagsan. sidoo kale Online Call. Xayeysiinta macallin waxay ku noqon kartaa qofka marka ay gaartaba inuu ku soo waco. Xayeysiisyada uu ku leeyahay asaga wicitaanka waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dadka inay ku soo wacaan ama ay soo wacaan ganacsigaaga. Waa macallin adeeg loo fududeynayo in dadka wicitaan call ah ay ku adeegsadaan halkii lambarkaaga ay ku dadaali lahaayeen ama halka aad joogto call-kii saaranba. Kadib wuxuu ku leeyahay call dhakusii lambarkii aad horay aad ugu soo save garaysatay markii aad xayeysiinta sameynaysay ayay ka soo wici karaan ayagoo isticmaalaya hadba aaladda markaas ay ku jiraan. Halkan ayuu markaa kugu sheegaa waxayna ka soo muuqan karaan oo keliya aaladaha sameeya wicitaanada tooska ah sida aaladaha la isku waco. Aalad walba oo calling leh ayaa xayeysiintaada ay ka soo muuqanaysa marka macaamilka suurtagal ah uu gujiyo xayeysiiskaaga. Xayeysiiska haddii uu macaamilka ku dhufto waxaa la leeyahay Hebel Cosmetics ama Hebel Hospital wac. Xayeysiisku wuxuu ka soo wacaya ku leeyahay alabkooda hadba qofkaas xayeysiintaada arkay halka uu joogo application-nada uu ku jiro ayuu toos kaaga soo wacaa. qayb macluumaad waayo oo ah qaybta saddexaad App Installation ayaa la dhahaa. Xayeysiiye app ahaan ama application ahaan. Tusaale uu yiri waxaad doonaysaa inaad app-kaaga geliso
gacmaha isticmaalayaal badan oo lacag bixinaya. Tusaale macallin, waxaad diyaarisay application, marka waxaad u baahan tahay inaad applicationkaas dadka aad u gacan geliso si xayisiin ay u saartaan. haddaba ku yidhi sidee ula xiriiri kartaa dadkaas macallin? halkan ayaad ku baran doontaa. ololayaasha abka ayaa ah hab socodka adiga kuu sahlaya waxaa macallin inay kala socdaan, waxaa kuu sahlayo dadkaas marka, taas oo sahlayso in aad kor u qaaddo abkaaga dhammaan qeybaha Google-ka ugu waaweyn oo ay ku jiraan search-ga, waxyaabaha raadinta, Google Play-ga oo ah application-nada ama abka mobilada Samsung-ka ay wax kala soo degaan, YouTube-ki ha ahaado, iyo Discover and Google search ama Google-ka waxyaabaha uu markaas soo bandhiga, iyo shabakadaha bandhiga Google-ka. Wuxuu ku yidhi keliya ku dar dhowr sadar oo qoraal ah, waxyaabaha yar ayaa markaas ku daraysaa, ha ahaado dalab ama ha ahaato hanti markaas aad adigu gelinayso. inta soo hartayna ku yidhi waa la hagaajinayaa si ay uga caawiso isticmaalayaasha inay ku helaan. keliya marka intaas geliso, inta kale Google-ha ayaa kuu dhammaystira macallin oo barnaamij diyaarsan ku diyaarina. si guud app installation macallin waxa waayo application-nada ayuu ka khuseeyaa. haddii aad tahay qof application leh, xayeysiisyadaada dhankaas ayaad gashan kartaa waayo. qaybta labaad marka aynu gudubno. qaybta labaad macallin waxaa la yidhahdaa shopping ads. shopping ads maxay tahay? haddii aad ku yir tafaariiq leh qof alaab hal isaga gado, waxaad isticmaali kartaa nidaamkan wax iibsiga si aad kor ugu qaaddo aaladaada online-ka ama alaabadaada online-ka ah iyo tan maxalliga ah macallin, halkan ayaad kor ugu qaadi kartaa. haddii aad tahay qof iibiyo waxyaabaha shopping-ka, ama hal isku carfiyo ama hal isku udgiyo ama hal la marsadee, haddaad waxyaabahaas gado, shopping ads ayaad sameynaysaa insha Allah. si aad kor ugu qaaddo traffic leh bogagga ama dadka bogagga haysto ama dukaanka, oo aad u hesho iib tayo wanaagsan, si aad u bilowdo waxaad noogu soo diri doontaa xogtaada alaabta xarunta Google-ka, ama xogtaada oo dhammaystiran ayaad xarunta Google-ka shopping-gaada ha ahaado barfuun, kareemo macallin, waxyaabahaas dhan ayaa Google-ka meel waxaa jirto la geliyo, halkaas intaad geliso ayaad ayagii la wadaagaysa, aad leedahay alaabtaas shopping ads ha la igu sameeyo. qaybta saddexaad video ads. video ads macallin inta aan waxaan aan akhrinin kuwa macallin waa buug waayo ama waxyaaba inta badan ayaga ay soo diyaariyeen oo ku qornaay English. Soomaali ayaa macallin aniga aan kugu bedelay maadaama aad tahay qof Soomaali ah, laakiin macallin waxaa ku fiican mar waliba inaad ciwaan ka fahanto bas. video ads macallin waxaa in xayeysiintaada aad ka dhigto muuqaal dadka soo jiidasho leh, lana fahmi karo, lana clear ah oo wax cadaan ah oo wax aan ku jirin shucaac waxaas ayaa loo yaqaanaa video ads. waa xayeysiis wuxuu ku leeyahay asaga waa maxay xayeysiisyada fiidiyoga ee Google Ads-ka, kadib ayuu kaaga jawaabaa xayeysiisyada Google ku leeyahay. waxaad ku abuuri kartaa ayuu ku yidhi olole muuqaal oo soo jiidasho leh, waxyaaba muuqaal soo jiidasho leh oo marka macaamilka uu arkaba uu soo galaa, marka ayaad video ads-ka aad u adeegsanaysaa oo watuu ku yidhi qaabab xayeysiin muuqaal ah oo kala duwan, hadba
dhag dhag isiinaya si aad macaamiishaada ugala qayb gasho siyaabo kala duwan youtube-ka iyo guud ahaan goobaha fiidiyoyada ee baraha bulshada ay kasoo muuqdaan video walbo ama meel walbo video lasoo geliyo markuu qofka daawado kaleento inta badan waxaa u badan youtube-ka markuu daawado dhag 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 xaysiin video ayaa kasoo dhexgelayso laakiin haddii xaysiintaas ay tahay xaysiin soo jiidasho leh qofka cabaar ayuu ku daawanaa sidaas ayuu kula soo xiriiraa asaga marka wuxuu ku leeyahay qaababka xaysiimada ee la heli karo ku yidhi waxaa ka mid a xaysiisyada durdurada ama xaysiisyada durdurada ee la dhaafi karo ama xaysiiska macallin marka waxaa jirto xaysiin video ah oo markuu qofka ku dhufto ama markuu qofka galo la dhaafin karaa jirto oo skip la iska dhihi karo iyo waxaa jirto xaysiin inaad daqiiqado cabaar adi 30 sekin 15 sekin 5 sekin waa khasab inaa xaysiin daawato xaysiinta marka ay khasabka tahay in aad daawato ayaa waxaa loo yaqaanaa xaysiisyada durdurada ee aan la dhaafi karin haddii xaysiiska kolkuu soo galo aad isdhaafisana waxaa loo yaqaanaa xaysiisyada durdurada ee la dhaafi karo way kala qaalisan yihiin kolka dhowtii aad ku shaqeyn doonto haday tahay xaysiin qofka ay khasab ku tahay 30 sekin in uu daawado iyo xaysiinta inuu qofka skip iska dhaho ma sinna macne 3 qayb ayaynu qaadanay soo maha waxaa inoo dhiman 2 qaybood cashirkan kan xiga ayuu inoo ahaan doonaa sidii aan horey aan idinkuu sheegna 3 cashir waxaa waayo theory wixii ka dambeeya ayaynu geli doonaa practice waa Ustaad Mustaf. Salaamu calaykum.